laba wada jirta sideedaba oo dawladnimadu sida hore u sheegnay waa laba qaab maartay mid ambiyada Allah baa looga beenaya qaabka marka dawladnimada nabiyada Allah la yimaadeen oo khulafaadii raashidiinta ay uga dambeeyeen oo uga dambeyn jireen qof walba oo mu'min oo Allah rumaysanna oo dad ku wadi jiray waxa weeye waa qaabka macnaha istikhlaafka weeye waa khilaafa fil ardi weeye arladii Allah looga dambeynaya oo arlada waxa loogu dhaqmayaa inaan lahayn oo mulkigeeda anagu lahayn Allah leeyahay qofka bani'aadamka uu khaliif yahay waxa uga banaan waa wixii Ilaahay u idmo kaliya inuu uga banaan yahay Ilaahay sheegay kaliya uga banaan waxaan Allah u idmin oo Allah ka xarimana waa wax ka xarimana oo ma dhici karo mana gudbi karo qofka bani'aadamka marka qofku markuu ku shaqeynayo xuduud Allah oo ahdi Allah ku shaqeynayo oo kitaab Allah ku shaqeynayo oo wax walba uu fiirinayo sida kitaabku yahay khilaafada noocaas waa khilaafa oo raashida weeye oo hanuunsan weeye waa mid maartay iimaanka weeye bani'aadam caabudayana meesha waa ka baxaysaa waxay dadku noqonayaan kuwa Allah caabudaya qofka muuminiinta oo gaaminaya markaana waa qof maarad ku hogaaminaya fulinta kitaabka Allah weeye ee dadku waxba ma dheera xuquuqdii waa u siman yihiin hawl uu dheer yahay wax uu uga duwan yahay iyagii malaha taa marka waxa weeye mid Ilaahay doonayo weeye arladan in lagu camiro oo diin Allah lagu camiro kitaab Allah lagu dhaqan geliyo baa Ilaahay doonaya markaan لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم بإليه إقامة كتاب الله إذا لدونها هي كتاب الله إلا إستاجيه ولو ضغمه أو حكم نقضه ذكر صارها يا إلهي سبحانه وتعالى دوني قاب كمر قاب إلهي هالي فيها وي وأنا قاب كمؤمنين الله برها إن أرلض إشاء سورة جليان وإلهي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إلى الدين كالله كيف يش ووحول بالله لوه قاسمه فقال الله ذلك waxa loo jeedaa hayaba jihaadku ujeedadiisu waxa weeye khilaafka raashida inay soo baxdo oo islaam toosan uu soo baxo oo dadka ahlu iimaanka tamkiin yeeshaan oo kitaabka Ilaahay istaago baa loo jeedaa nidaamka gaaladuna ay baabaan baa loo jeedaa xukunka marka noocaas iyo dawladnimada noocaas waxa looga deenayaa ambiyada Allah weeye oo kitaabada Allah waa loo xukumi jiray Tawraad iyo Injiil iyo Qur'aan iyo waliba waxa loo xukumi jiray bani'aadamka lagu hogaamin inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi li tahkuma bayna an-nasi bihi bima araka Allah marka waa mid looga deenayo ambiyada Allah iyo dadkii wadada nabiyada raacay baa looga deenayaa marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka leeyahay ambiyada Allah Isxaaq iyo Yaqub iyo marka leeyahay wuxuu yiri waja'alnaahum a'immatan waxaan ka yeelnaa a'immada leeyahay kuwa lagu daydan ka yeelnaa yahduna bi amrina dadku kuwanaya amarka Allah baa Ilaahay ka dhigay baa dadkii hanuunsanay reer bani Israa'iil Ilaahay wuxuu yiri waja'alnaa minhum a'immatan yahduna bi amrina baa waxaan ka yeelnay baa leeyahay a'immadan ka dhignay kuwa xaq looga deenayaa ka yeelnay إني جاعلك للناس إماما ضدك الإمام كايدها يا قدوة من كايدها يا مد قديدان وهنون كإسلام نمو قديدان بان كايدها يا إن إبراهيم كان أمة وهوها قدوة وهذا لي قدوة من قديدة وها مرك أئمة إلهي يعني ونوت الإمام هي وإن قديدة حتى وأنبياء الله يصالحين تهروي ونكسناوي لأن على بالنا وحوي دول النمو بعد كان ومد استكبار كل سوي أو قفت بن آدم كوصل رغمين إنه خليفة هي إنه مالك الملك هي وكلام رغمين arlada inuu soo leeyahay wuxuu rabo ka sideenayo wuxuu rabo diiday wuxuu rabo maartay banaynayo wuxuu rabo dilahay wuxuu rabo deelay soo aan u noqonayn kitaabka Allah oo marjica Allah u noqonayn Allah inuu uga sareeyo talada uu san garanay ee isaga inaan looga sareeyn uu malaynayo sidii fircoon uu yiri kale ma caalimtu lakum min ilaahin ghayri ilaah aniga aan ahayn oo la bicayo aniga ma garanayo uu yiri oo runtii uu iska sheegay saraaxa sidii wax u arkay uu hadlay ilaa kuwa hadda joogaan nifaaq bay sameeyeen ilaahay aan rumaysanahay ilaahay xaajibana ay leeyihiin أمرك إلهي وعلى الله هيان يلي ما ينعيد إلهي بعض الكيو من سنين بفلنيان تذكينا بين بوشي يعني وحي لي أنه الحجاج بأوضع حجيني وواتك النبي أرونيان وواصل النبي أرونيان من سنة وحوية عيده إلهي وعلى الله هيان وحقي وعبد ديده هيان قالوا يكرها للجنين ينكفر جيمات كفر النمو قالوا أي رمان ديمقراطية وحي قادنا ينكفر للجنين تقالوا ديمقراطية أنا كتاب إلهي بربري اللوي ومبادئ إلهي بشي بربري اللوي وكفر أوي sida marka nabiyada Ilaahay aimo looga yeelay oo lagu dayanayo ba Fircoon iyana waxa laga dhigay aimo baa laga dhigay jacalnahum aimatan qof walba oo marka mustakbir ah oo kitaabka Ilaahay waxaan ahayn dadka ku xukumaya waxa weeye waa kuwii raacsanaa asbaac Fircoon weeye Fircoon baa imaam u weeye naartana Fircoon buu la gelayaa xaqiiqada sidaas weeye wa asba'nahum wa ra'sinahum iyaga waxa raacsinay fi hadhihi dunya waxa raacsinay la'nad baan raacsinay oo ka fogeyn baa maartay la raaciyay raxmada Allah laga fogeynayo ويوم القيامة مالنت قيامها هم يو من المقبوحين كوا الفوش اللي بسمي الأهانا هيانا للدليه والنار تقفل الورد وقفل الدليه
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وقال لي رقفك الله النار تكون جدواد باللي سواه السوي هو اللي قول حمي أو باللي سنانه ينولش أبدك أو شرمدك أو ولي اللوار هي هو باللي سنانه يوي تبكي إليها يين وبيننا يين ودون كان يكون بيين بريه يروي ودون كان آخرنا وحي نغنى يان قوة كرامي سنبي نغنى يان وجعلني من المكرمين كل كراميين يون أهانيا فرعون يوحي الرعاء ووضي استقابة واستكبار لي ماذا كتابك الله الديدنا وحي نقول يا سيدي إلهي نوشي من المقبوحين كل الفلسمي